oo ka bilaabay magaalada dib toddobiyo labaatanki ilaa sagaal iyo labaatanki oo maanta geelkii la soo gabagaboway shirka oo lagu falanqeynayay buugga qorshaha horumarinta gobolka Jubilee ee soo saartay wasaaradda waxbarashadu wasaaradda qorsheyntu in lagu sameeyo dib u eegis oo wixii qabsoomina laga saaro wixii kale baahiyaha sida kulmiyeysiina la sameeyo mashaariicda loo jeediyay Axmed waxay ahaayeen mashaariicda la doonayno in xukuumadda talada haysa ay fuliso noogu daran oo mashaariicda noogu daran aan ka codsanayno xukuumaddu inay yihiin baahiyihii dhabta ahaa ee bulshada haysay kuwii ugu dambeeyay in dhibka wax laga qabtaa shirka waxaa wadajir soo qabanqaabiyey aqoonyahanka gobolka iyo barasaabka gobolka iyo